والله way jiraan walaalo stereotypes baa luqadda Englishka lagu yidhaahdaa waxyaabo labels la iskaga magacaabo hooyooyinka judgment fara badan baa jiro ah in xukun lagu qaado gabadhii hadii goor la yidhaahdo wixii lagu soo furay bay qabtaa maxay hayday furniinka laftarkiisa laga aaminsan yahay inuu yahay wax maaragtay fool xun oo taabuu ah ama dabcan waa wax laga naxo oo wax lagu farxo la dabaaldego maaha waa qoys burburay laakiin waxaad moodaa yacni qofka uu ku dhaco in wax ka sii yihiin oo shakhsiyadiisii iyo qofnimadiisa lagu baabiinayo intaas lagu soo koobay qofkaasi furniin buu maray marka caqabadaha ugu horeeya mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ay dumarka single motherska la kulmaan waxaa ka mid ah yacni takoors in farta lagu gudaayo maxay hayday dadka qaar hablaha qaar markay furniin maraan familiga caqabad fara badan kaga timaado familiga dhexdiisa ayaa laga takoraa la odhanaya yacni waxaa tay qofkii ugu horeeyay lasoo furo weligeebana laguma aqoon inaan lasoo furo waxaa laga yaabaa kuwa laga qabaa inay la nool yihiin dhibaatooyin fara badan oo furniin ku dhaamo maxay hayday waxaa laga yaabaa inantii markay istiraahdo haasow oo maaragtay maxay hayday dib ama calafkaaga u tijaabi in caqabado fara badan ay la kulanto oo maaragtay basically dee lagu qaado un maxay hayday furniinkay martay markay tahayna weli bay sahlantay laba markay tahay way kasii daran tahay inaha marka laga yimaado waxaa soo raacaya dabcan mas-uuliyaddii oo labadii mas-uuliyadood ay maaragtay maxay ahayd in badanoo ka mid ah haddaan dhammaanteedba aanay ahayn oo qofka hooyadii ahay ay dhabarka u wada ridanayso marka dabcan aabbayaashu way kala sakhiran yihiin qaar baa jira aan ilaahay barakeeyey mas-uuliyaddooda kasoo baxaya qaar baa jira aan kasoo baxayno waxay ila tahay aniga aragtideeda aabbayaasha soomaaliyeed waxay u badan yihiin aabbayaal markay gabadha kala tagaan ilmahana ay kala tagaan marka ay hooyada ku qasbanaan in mas-uuliyaddii ay dhabarka wada ridato tukalon arkay waxaa weeye xataa aabbayaasha tiro kooban oo ilaahay subxana wataala u naxariistay oo mas-uuliyaddooda isla gudo si buuxda mas-uuliyaddooda uma gutaan oo waxaad moodaysaa yacni ilmo aabihii adduunka keenaya ilmihii muxuu u baahan yahay keliya taguma baahnaa yacni $100 oo gabadha lagu aamusiiyo bishii la yidhaahdo ilmaan ku biilaya ilmihii hoy buu u baahan yahay maxay haday wuxuu u baahan yahay quutul daruuri buu u baahan yahay dhar buu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay madadaalo u baahan yahay waa qof bini aadan oo dhan oo neefsanaya waxaa laga yaabaa maanta gabadhaas haddii guriga kugu joogi lahayd in intaasoo dhan aad u dhammaystiri lahayd waayo waxaad ogsoontahay baahideedu inay intaa tahay maad hoy tirteen maxay hayday mas-uuliyadda aad iska saartay kumay koobnaateen keliya ta cuntada iyo raashinka laakiin waxaad ka warwari lahayd maxay huwanaysaa maxay xidhanaysaa ilmahaagu muxuu xidhanayaa waxbarashadii madadaaladii intaba maaragtay waa mas-uuliyad buuxdaad iska saari lahayd laakiin aabbayaashu markay kala tagaan hooyooyinkii waxaad moodaa inta xataa mas-uuliyadda gudanaysa inay mas-uuliyaddii si buuxda aanay gudanin dabeedna hooyadu haddii xataa culayska in uun laga khafiifiyey si uun culays ugu furan yahay oo ay ku qasban tahay in mas-uuliyadda labada dhinacba ay kaalin mug leh ka ciyaarto